hoggaanka nabadgelyada dowlad deegaanka Soomaaliya baydhabo terminaal cusub oo laga dhagax dhigay safiirka boqortooyada Sacuudiga iyo gudoomiyaha baarlamaanka federaalka Soomaaliya oo kulan wada qaatay tabashadii gobolada galbeedka ee Somaliland saxafiyad qurba joog ahayd oo lagu dilay beer ay ku leedahay Afgooye maanta magaalada Muqdisho waxaa lagu soo dhaweeyay wafdi ka socday shirkadda Turkiga ee TBA oo aynu isku soo noqono wax yar kadib saaxiibayaal isku soo noqod wanaagsan dhamaantiinba sidii hordhaca aad ku maqasheen hoggaanka nabadgelyada dowlad deegaanka Soomaalida mudane Dayib Axmed Nuur ayaa maanta soo xidhay shir muddo 2 cisho ah ka socday hoolka xafiiska nabadgelyada kaas oo uga socday gudiyada maareynta ee xafiisyada kala duwan ee santarada nabadgelyada heerka deegaan iyo sidoo kale hoggaanada nabadgelyada gobolada iyo maamulka magaalooyinka deegaanka shirkan ayaa ujeedadiisu ay ahayd qiimeynta warbixinta waxqabadka santarada nabadgelyada ee rubaca koobaad dowlad deegaanka Soomaalida haddaba hoggaanka ayaa kula dardaarmay laamaha amniga dardargelinta guud ahaan howlaha lagu xaqiijinayo amniga deegaanka heerarkiisa kala duwan xoojinta nidaamka qorshe ku shaqaynta iyo kor u qaadista nidaamka adeeg bixinta iyo ku qanacsanaanta xafiisyada waxaana ugu dambeyn lagu ansixiyay warbixin guud oo santarka nabadgelyada rubiciisa koobaad madaxweynaha koonfur galbeed Cabdicasiis Xasan Maxamed Laftagareen ayaa maanta dhagax dhigay terminaal cusub oo loogu talagalay garoonka diyaaradaha ee magaalada Baydhabo mashruucan cusub ayaa ah tallaabo muhiim ah oo kor loogu qaadayo adeegyada garoonka iyo horumarinta isku socodka diyaaradaha taas oo sidoo kale gacan ka geysan doonta kobcinta dhaqaalaha iyo fududeynta safarka gudaha kan caalamka ee koonfur galbeed madaxweyne Laftagareen ayaa ku bogaadiyay mashruucan muhiimka ah ee horumarinta kaabayaasha dhaqaalaha Baydhabo ay ku tallaabsatay iyadoo sidoo kale uu xusay in tani ay tahay qayb ka mid ah qorshayaal ballaaran oo lagu horumarinayo adeegyada gobolka gudoomiyaha golaha shacabka ee baarlamaanka jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya mudane Sheekh Aadan Maxamuud Nuur Sheekh Aadan Madoobe ayaa xafiiskiisa kulan kula qaatay safiirka boqortooyada Sacuudiga u fadhiya Soomaaliya Axmed bin Axmed al-Mawlaad safiirka ayaa ugu horeyn bogaadiyay shaqada golaha shacabka iyo sidoo kale guud ahaan horumarinta ay ku tallaabsatay dowladda Soomaaliya waxa uuna sheegay in xiriirka ka dhaxeeya labada wadan in uu meel wanaagsan marayo sidoo kalena dowladda Sacuudigu u diyaar tahay xoojinta taageerada shacabka Soomaaliyeed gudoomiyaha golaha shacabka ee baarlamaanka jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya mudane Sheekh Aadan Madoobe oo dowladda Sacuudiga uga mahad celiyay taageerada Soomaaliya ay siiso ayaa sidoo kale waxa uu sheegay in dowladdu ay horumar la taaban karo ka samaysay dhinacyada siyaasadda amniga iyo dhaqaalaha isaga oo dhanka kale sheegay in Soomaaliya iyo Sacuudigu uu ka dhaxeeyay xiriir soo jireen ah oo dhinacyo badan taabanaya bal aynu u kacna xagga iyo Somaliland gobolada galbeedka Somaliland ayaa muddo dheer ka muujinayay saamiga ay ku leeyihiin nidaamka dowladda gaar ahaan dheelitirka qabaa'ilka iyo awood qaybsiga siyaasadeed eegas gudoomiye ku-xigeenkii Axmed Yaasiin Sheekh Cali Ayaanle iyo xildhibaan Maxamed Abiib Yuusuf ayaa marar badan arrintaas u ololeyn jiray inkasta oo aysan horey ugu guuleysan in ay helaan saamiga ay u arkaan inay xaq u leeyihiin haddase burbur siyaasadeed iyo mid bulsho ayay ugu bedeleen bulshadii aamintay sida wararka hoose oo na soo gaadhaya ay sheegeen saxafiyad qurba joog ahayd oo lagu dilay beer ay ku lahayd Afgooye Amuun Cabdilaahi oo ahayd saxafiyad Soomaaliyeed oo 10 sano ku noolayd dalka Sweden
balse sanadihii ugu dambeeyey dalka deganeyd ayaa toddobaadkan lagu dilay beer ay ku lahayd meel u dhow degmada Afgooye. sida aan wararka ku helnay, 2 nin oo wajiyada soo duubtay ayaa amuun ku dhex dilay beer ay iyadu lahayd. weli lama oga sababta loo dilay iyo cidda ka dambaysa toona. maanta magaalada Muqdisho waxaa lagu soo dhaweeyay wafdigii ka socday shirkadda Turkiga ee loo soo gaabiyo TPAO. wafdigan ayaa u yimid Soomaaliya si ay u bilaabaan qorshayaasha haminta shidaalka iyo kheyraadka dabiiciga ah ee dalka, taas oo qayb ka ah heshiisyo dowladda Soomaaliya ay la gashay Turkiga. munaasibadan soo dhaweynta wafdigan waxaa ka qayb galay mas'uuliyiin ka tirsan dowladda federaalka ee Soomaaliya, kuwaas oo ku tilmaamay tallaabadan mid muhiim u ah horumarka iyo xasiloonida dalka, iyadoo sidoo kale loo arko mid xoojinaysa xiriirka qotada dheer ee ka dhexeeya Soomaaliya iyo Turkiga. wararkeeni toddobaadlaha ahaa ha inoo joogo maanta halkaa inta aynu ku kulmi doono wararkeenan warar xiga insha Allah.